السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال مالك سبنيد كجوجتان كسر وهذا مانتا iyo wararka ugu waaweyn aflaamta Hindiga ee channelkeena waxaanu soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Bollywoodka Hindiya waxaana wararkaanu soo qaadan doonaa waxa ka mid noqon doona filimka War oo ugu dambeyntii maanta oo arbacaha soo baxay iyo saadaasha laga bixinayo filimka ka baanu soo qaadan doonaa wali waxaanu eegi doonaa warar kale oo ku saabsan actorka weyn Tiger Sharif iyo Hrithik Roshan waxa wax laga weydiiyay hadii ay ku heshiiyeen ninka la garaaci doono filimada la isla jirayo waxa in badan waxa la yiraahdaa wariyaada lagu garaaci doona waa in dul qaadataa miyaa uu dhacay heshiis ah in Hrithik iyo Tiger mid marka isfeeri doonaan mid in badan in la garaaco Tiger baa ka sheekeynay arrimaha kaayo iyo waxaanu soo qaadan doonaa maanta qodobo inuu ay qayb ka yihiin Salman Khan oo la soo saaray filimkiisa Dibangi Triq muuqaal ku saabsan oo mar kale uu ka yaabinaya shaaribkiisii oo yaalaha gadaal laga soo bixinay wali waxaanu soo qaadan doonaa actorka Vidyut Janmal waa Janwal oo hadda soo wada filimka Commando 3 iyo sheekooyinka ugu dambeeyay baan ku sheegi doonaa iyo John Abraham iyo filimkiisa oo Borsmi kartidiisii la soo saaray wali waxaanu soo qaadan doonaa qodobo uu qayb ka yahay filimka Shahid Kapoor ee lacagta badan soo xareeyay ee Kabirsin yaa garaaci doona ma filimka Dibangi Salman Khan baa garaaci doona ma filimka War ee Tiger iyo Hrithik baa garaaci doona mise filimka Akshay Kumar baa garaaci doona hoos filo waxaan arki doonaa arrimaha ku saabsan filimada ka iyo qodobo kale muhiim baan ku soo qaadan doonaa maanta aflaamta Hindiga hadaad saaxiib channel ku cusub tahay noo subscribe garay si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta wararka ku aadan madadaalada aflaamta Hindiga hadda yahan laan ku kale sportiguna taariikhaha ku dheehan iyo waxaana wad heli doontaan halkan baad kiri doontaan waa yahay maanta waa maalintii la sugayay labada bisha October bay ku beegan tahay waa maalintii la sugayay inuu soo baxo filimka War waa filim aad loo sugayay waxaan isla wada actorka Hrithik Roshan iyo Tiger Sharif oo horena film isla keenaya filimkan Hindi aad baa looga sugayay annaguna channelkeen wax badan baan ugu hadalnay filimkii War waa soo baxay waa soo dhow yahay wuu soo bixi rabaa boorsimintiisa baa la soo saaray saan wayaan kan wayaan oo kan balo wayaan wax badan baan ka soo hadalnay War haddaba maanta oo talaado ah labada October waa markii loo madalsanaa in filimku la daawado ugu dambeyntii filimku waa uu soo baxayo Hindiya oo dhan shineemooyinkii maanta waxa wada saaran filimka War Hrithik iyo Tiger oo film isla keenaya waxyaabo filimka xiiso u leeyahay waxay tama taqaana iyagiiba isla heesaya waxa la arki doonaa yaa labadooda dansiga ku fiican iyagiiba isfeeraya waxa la arkaya labadooda iyo action ku fiican waa wiil yar oo Tiger Sharif wiilkan uu Jack Sharif baa dhaliyo waa wiil laakiin khatar badan isaga Hrithik baa la arkaa cidda filimka ku adkaan doonta laakiin waxa la isweydiinayaa يا إن بدن فيني كان لفيري دورا وحليري وريا تايجرو adiga Hrithik Roshan baaliri muku heshiiseen baaliri ninka in badan feer badan lagu dhufan doono ileen way ka jirtaa waxa ka filimadu way ka dhacdaa tusaale ahaan filimka Mareykanka ee Hollywood soo baxay ee magaciisu yahay Hobbs and Shaw ee ay isla wadeen Jason Statham iyo Dwayne Johnson filimka isla wadeen baa lagu leeyahay labadu ninba way ku heshiiyeen baa lagu leeyahay heshiis bay ku galeen baa leeyahay markay filimka isku dagaali doon ilaa Nadri Atorayal Nadri waa Atoro way ku filim ku jirayaan waxay ku heshiin baa lagu leeyahay yaa in badan la garaaci doona yaa feert ugu badan lagu dhufan doona yaa la laadi doona haranti badan lagu dhufan doona yaa si filimka looga adkaanaya markii Nadri Atoro ay dagaalamaan qof baa laga adkaadaa marka heshiis baa lagu dhexmarayay filimka intaan la bilaabin bay labada qof ay jiray ku heshiinayaan baa lagu leeyahay labada qof kan la garaaci doon la bahdilayo يا بهدلك أقولانيا وعلى المركي ريتيجو أدم بهدلك أقولادي أما تاجر بقى أقول يعني تاجر أدم أقولاد بهدلك واليري مسيرتك بقى أقولادي معناه لبضة فيلم أتورال بهدلية ولا عيلة بخوار الله أتورال فيلم قد وجع عشان مركي وضان إن بدو حنسوا أرك جري بلوان يا أكشي كومار سنشتي أكشي كومار من أرك جري وفيلم دو صورة أدب يوجع لانجين مركي إسفيري أنا أقوله مركي أكشي كومار لفيري أقوله كوا سنشتي ويفرح حسين ويدبل دقيان مركي سنشتي لفيري كوا أكشي كومار با فتح جري إن كسر أرك جري فيلم أكشي كومار يو سنشتي أي كيرن أقوله إن بدن أكشي كومار لفيري جري هذا يهان لاين فيلم دي مهر أقوله يو ولو مستلو مرة دم بديل مضحك كانوا فنانين كانوا فيلم دي كلا إسلا فيري فيرت صارت إسلا فوليين فيلم بدن أقوله دون إسلا كيرن أكشي كومار اللي جلعنا مع جبت اللي وحال مركل اللي وحال نصب بحي مركل لبض أكتر إنه كوي شيريان إن بدنا كجراعة معنا إيه أقولوا إنهم كورة هيستمعنا أنا جبت كاجل اليوم مركل فيلم كوجدا بيا ديوان جونسون إيو جاسون ستانن فيلم كي هوبس أند شو وحلا لك إلا بدنا كوي شيان يا لقعد كان دونا يا نسيف على الله جراعة دونا إلو كوي شيان بالأركين هذا Tiger Sharif aysan waxa laga weydiyo waxa la idin ku heshiiseen baa leeyahay labadiina mid in la jilciyo oo la feero wuxuu leeyahay anigu Hrithik mid wuxuu leeyahay aniga Hrithik wuxuu leeyahay waxaan nahay dad xirfiyan ka dhacay uu leeyahay anigu Hrithik horta maxaan la tirsaday Hrithik maxaan la tirsaday uu leeyahay anigu Hrithik waxa weeyaan waan xushmeeyaa waanan ka dambeeyaa buu leeyahay asaga labadeenu wixii filimka wanaagsan baanu sameeyay buu leeyahay macnuhu uu qarinayaa
كل وانا ركض دونا عدة فينك اللي جوبها ديري دونا عدة فينك اللي جوب فيري دونا عدة دانسي اللي جوب راعي دونا كل وانا ركض دونا يو فينك وانا كل حركة دونا كل فينك ما أنت وصوب حيو صدال بنا لقب حنايا فينك أنت العقل وصو حرين دونا وحلا يقولان ما أنت كوا فينك وصو حرين دونا بالله لعقدا أفرتن يشان كرب بالله سيد الله صادال نيو على أي حال فينك يورو صوب حي أكشن ذي يدانسي جيبه وفينك اللي جوارك دونا وحنا ركض دونا نيك اللي جوب راح أنا ورت هستن أركي إسلا قاضيان هيسك وحلو راح يسنا تايجر أو حلقة دقيقة مت أو وحبا هنا لقى دقيقة سودان سو عياريو كم با سو قلي تيرك إحنا ده تاجية مركا نيك اللي بهدلي دونا وروين واركي دونا كل اللي بدأ التر مت با لقوا باش على جاي وحيابها كلا يقوم مهم سنة هنا أفلام تهندي جاينا وحكم ده فيلم كان وحلا صاب حي فيلم كأبها رمجرن نيك اللي هذا معناه ما أنت عشان ممكن دي وحلا صار فيلم كأوضة أبها رمجرن نيك اللي هم قاعد جرن جيفي بايسنا الله صار عشان ممكن ما أنت مركا الله هذا فيلم سوق كتر تمي دوران فيلم كديبان جترينا ولا صوص صاري بورسمين تدي سو ما هن بورسمين تدا ومقال ير أو كسبسن ديبان جتري سلمان قان بحضيا isla sidii buu filinkiis dibangiyadu waxa lagu yaqaan Salman Khan inuu markaa askariga xirto askari waxa weeyaan askari u muuqdo ciyaala suuq buu muuqdaa oo iska ciyaaray hatta iska neekinaya iska daansi ciyaaraya mar kale dibangitri wuxuu muuqdaa dibangiyadii hore Salman Khan sharafki ku caan ka xaw leeyahay oo kiyaalii gadaal uu ka soo bixinayay kuleti ka soo bixinayay la surinay uu leeyahay sidii uu walwaalayahay oo asag uu leeyahay sidii uu yahay dibangitri muuqaalka ugu horeeyay laga soo saaray wuxuu cadeynaya Salman Khan inuu haddana mar kale filimkan kaaga yaabsan doono aktarka weyn Salman Khan ayaa filimkan jiray waxaana director u ah ninka lagu magacaabo Borodeva oo Soomaalida u yaqaanaan boqorka marka dibangitri muuqaalkii ugu horeeyay waa laga soo saaray Salman Khan mar kale ayuu filimkan kaaga yaabin doonaa dibangitri waxa lagu wadaa in la soo saaro 20ka December baa lagu wadaa in la soo saaro waxaana laga sii deyn doonaa tiyaatarada Hindiga Tamilka Teluguga iyo Kannada waxyaabaha kale ayaan ugu miimsan iyana aflaamta Hindiga ina waxa kamida Vidyut Janwal waa taqaan ninka kanu filmo badan oo action loo keenay cunug caadi ma ahan marka qaarna laadir uu keenay mar badna laakiin inta badan atornimo uu keenay ninkan waa nin caadi ahayn oo diyaarsan waa macnaa JK Janwal ma leeyahay suubood boodayo ninkan waa taqaanin ninkan ma aqaan midii kartiin ninkan waa taqaanin waxa la radaa Vidyut Janwal baa la yiraahdaa filimkii soo aadan ee Commando 3 xilliga la sii deyn doono baa la cadeeyay filimada Commando isaga baa keena hadaba qaybta saddexaad filimka Commando ee isagu soo wado xilliga la sii deyn doono baa la cadeeyay waxa la cadeeyay filimkan soo bixi doono 29ka bisha November ee sanadkan baa la cadeeyay inuu soo bixi doono filimka kan ee lagu magacaabo yaani Commando 3 oo actor kan ee aad wada garanaysaan baan wado maanta baa la cadeeyay xilliga uu filimkan soo bixi lahaa marka 9 November ninka filimkiisa ku saaran oo ninkan waa nin toroba actionista ah sidoo kalena waxa la soo saaray boorsamintada filimka uu soo wado actorka weyn ee John Abraham oo ay la wado atrishada lagu magacaabo Devia Qosla maalmood waxa idin sheegay in John Abraham uu saxiixay filim lagu magacaabo Sadiameva Jayeta filimkan hadda waxa la soo saaray boorsamintidiisa waxa la soo saaray raadi kaartidiisa waa ka arkaysaan ninku wuxuu ku jiray askari walibana u muuqda inuu yahay nin yaani ma taqaana wadani ah waka calanka Hindiya ka dhex muuqda meesha kaayo marka filimka uu soo wado ninka la yiraahdo John Abraham iyo gabadha isla soo wadaan waa ka la soo saaray boorsamintadiisa filimkan waxa lagu wadaa inuu soo baxo 2 October 2020 baa lagu wadaa inuu soo bixi doono marka waxa weeyaan wax 2020 October waxa weeyaan October teeda kale oo macnaa 2020 hadda se waxa aad loo hadalhayaa waa kee filimka meel saari doona filimkii dhawaan uu keenay Shahid Kapoor ee Kabirsin Shahid Kapoor maalin wuxuu keenay film uu ku jiray nin askulista ah laba xabsiyaar uu cabayo filimkaas askulistinimadu ku jiray Kabirsin baa leeyahay filimkaas Shahid Kapoor uu keenay wuxuu soo xareeyay dhaqaale aad u badan buu soo xareeyay filimka dhaqaalaha uu soo xareeyay waa dhaqaale inaba caadi ahayn oo filimku wuxuu soo xareeyay 278 karoor buu soo xareeyay waa filimka dhaqaalaha ugu badan soo xareeyay sanadkan ku gudu jirnay 2019 gabagabo maraysa haddaba rekoorkan malyaal la jibin doona inta sanadkan aan dhamaan waxa soo baxay filim badan waxa leeyahay marka filimka War ma jibin doona rekoorkan War oo ay wadaan Tiger iyo Heritic ma filimkan dhaqaale ka badan soo saari doona yani filimka uu waday Shahid dhaqaale ka badan filimkiisa yaa soo War baa soo saari doona leeyahay ee ay wadaan Tiger iyo ninka lagu magacaabo Heritic ama filimka Dibangitri ee Salman Khan ayaa rekoorkaas jibin doona oo isna sanadkan inta dhamaan soo bixi doona ama filimka Housefull 4 ee wada Akshay Kumar ee shactirada ayaa rekoorkaas jibin doona lagu leeyahay ilaa hadda 2019ka rekoorka sanadka lacagta ugu badan filim soo xareeyay Shahid Kapoor baa wata laakiin cod la qaaday taageerayaashu waxay cadeynayaan waxay leeyihiin filimka Shahid Kapoor waxa rekoorkiisa jibin doona leeyihiin filimka lagu magacaabo Dibangitri waxay leeyihiin maahan War filimka Heritic iyo Tiger
ma jibin doono rekoorka shahid bay leeyihin laakiin dibangi baa jibin doonay leeyihin taageerayaasha cod laga qaaday waxay saadaaliyeen in filimka war aan ahayn filimka rekoorkaas jibin doona laakiin filimka Salman Khan ee dibangi 3 inuu yahay filimka rekoorka filimka shahid dhaqaalaha badan soo xareeyay jibin doona waxaana kan labaad soo galay oo codadka labaad helay filimka uu wado ninka lagu magacaabo Heritage Tiger War ayaa loo saadalinay inuu noqon doono filimka labaad ee rekoorka inuu gaar laga yaabo يعني عددك اللباد ugu badan waxa helay filimka ay soo wadaan war Heritage walaan Tiger laakiin filimka dadka ugu badan codayeen 40% waxay leeyihiin dibangi 3 oo Salman Khan u wada baa noqon doona filimka rekoorka jibin lahaa laakiin dadka qalo waxay leeyihiin 36% waxay leeyihiin filimka war baa jibin doona halka kuwa kale la afar ay leeyihiin filimka Akshay Kumar baa jibin doona waan arki doonaa filimka cid jibisa ama filimka jibiya rekoorka filimka uu keenay ninka lagu magacaabo Shahid Kapoor isla sanadkan intaan u dhamaanin dhamaan aktarada Bollywoodka ayaa u tacsiinaya aktarkii Vijay Qoti oo aan shalay ku soo gudbinay warbixinteena hore inuu geeriyooday oo aktar weyn buu ahaa oo Iran 300 oo filim Hindiya keenay hadaba Rishi Kapoor Ajay Devgan ayaa kamid ahaa aktaradii baraha bulshada yaani ugu tacsiiday filimka aktarka kan weyn Rishi Kapoor wuxuu leeyahay waan ku xiisi doonaa buu leeyahay kan halka uu leeyahay Ajay Devgan waxa nasiib kula xabuu leeyahay inaan kula soo shaqeeyo filim badan kula keeno ninka lagu magacaabo aktarka mucaanka ah ayaa gurigiisa ku geeyay isagoo codsaday isbitaalka laga saaro wuxuu leeyahay guriga ku dhintay buu yiri waan ku dhintayo Vijay Qoti waa geeriyooday Ajay iyo Rishi ayaa u tacsiinaya intaan ku gobgabaynaynaa maanta aflaamta ugu waaweynaa ee Hindiga iyo maanta anigoo qarabada la socodsiinaya nabadgeliyo